بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجka bandhiga HBN barnaamijkan gabi ahaantiisa waxaynu ku soo qaadanaynaa warbixin la xiriirta dhibaatada dhaqaale ee Israa'iil iyo Mareykanka ka soo gaaraysa dagaalkan imika socda maalintii toddobaad si gaar ah waxaynu eegaynaa nidaamyada difaaca Israa'iil iyo Mareykanka oo kharash aad u fara badan ay u kacayso sidii looga hortagi lahaa gantaalada Iiraan ay soo rido warbixintan waxaanu ku soo gudbin doonaa warbixin la xiriirta masaafada gantaalada Iiraan ay gaaraan qiimahooda iyadoo mararka qaarkoodna ugu yaraan 10 gantaal oo Iiraan ay soo rida ay ku qiimo yihiin gantaal kamid ah kuwa Mareykanka iyo Israa'iil ay ku difaacayaan arrintaasi oo lagu soo waramayo inay tahay xarunka dhibaatada dhaqaale ee dagaalkan aysan ku sii wadi karin Mareykanka iyo Israa'iil madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajeynayay dagaalkan inuu ku soo gabagaboobo 48 saacadood laakiin maalintii toddobaad ayuu dagaalku marayaa warbixin xasaasi ah oo xog badan xabaarsan ayaa barnaamijkan idinkugu faahfaahin doonaa soo dhawaada marka la daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka dagaal wax u dhaxeeya ma jiraan guul iyo guul darro laakiin haddana waxaa ku sii lamaansan adkaysi geesinimo iyo in loo dulqaato in dad ay ku dhintaan qalab uu ku burburo guusha aan la hubin guul darro aad raadinayso waxaa haddana ku sii lamaansan qiimaha dagaalkaasi ugu kacayo cid walba ku lug leh dagaalkan imika bariga dhexe ka socda waxaa la tilmaamaa Iiraan inay u diyaar garoobaysay muddo 20 sano ah waliba sida ugu fudud uguna kharashka yar nidaamyada gantaalada Iiraan waa awoodda ugu dambaysa maxaa yeelay waxa la ogsoon yahay Iiraan inaysan lahayn ciidamada cirka oo awood leh oo u dhigma kuwa Mareykanka iyo Israa'iil waa cidda kaliya ee bariga dhexe ka haysata diyaaradaha dagaalka ee F-35 oo raadarada qaarkood ka dhuunta si awooddaas ay ula jaan qaado Iiraaniyiintu waxay sameeyeen nidaamkan gantaalada qaybahooda kala duwan inta aan idin soo gudbin warbixin la yaab leh oo la xiriirta qiimaha halka gantaal ee Iiraan uu ku fadhiyo iyo gantaalada lagu difaacayo ee Mareykanka iyo Israa'iil bal marka hore aynu eegno waxa laga yaqaan masaafada gantaalada Iiraan ay gaaraan iyo noocyada ay kala yihiin halkan waxaan idinka tusaynaa qariirad goobabin kasta waxay tilmaamaysaa inta gantaalku uu gaarayo aan ku hormarno gantaalka Shahaab 1 wuxuu gaaraa masaafo ilaa 300 oo kiiloomitir gantaalka Fatah 110 isna wuxuu gaaraa ugu badnaan 300 oo kiiloomitir laakiin waxaa jira Fatah 2 oo isagana 1200 gaari kara gantaalka la yiraahdo Shahaab 2 wuxuu gaari karaa ilaa 500 oo kiiloomitir gantaalka Zulfakhar wuxuu gaaraa ilaa 700 oo kiiloomitir gantaalka Khiyam 1 waa 800 oo kiiloomitir waxa iyaguna jira gantaalo kale oo ay ka mid yihiin Shahaab 3 Imaad Khadir Sajil iyo Hormashar oo iyaguna gaari kara ilaa 2000 oo kiiloomitir waxa kaloo jira isna gantaal cruise missile oo ah Sumer oo gaari kara ilaa 2500 oo kiiloomitir haddii aad eegto qariirada gantaaladaasi mid ka mid ah wuxuu gaari karaa Talyaaniga Jarmalka ilaa iyo Ruushka xaggan hoose ilaa iyo Hindiya iyo wadamo badan oo ka mid ah Aasiya Koonfureed xaggan hoose markaad eegto wuxuu gaari karaa ilaa iyo Kenya nankan Afrika markaad eegto wuxuu gaari karaa ilaa iyo Suudaan intii la dhaafo Masar la dhaafo ilaa Liibiya iyo Afrikada dhexe ayuu gaari karaa tani waxay ka dhigan tahay awoodda gantaalada Iiraan iyo sida ay u horumarisay waana sababta keentay dagaalkan maxaa yeelay waxaa xitaa
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha nuclearka ay sheegtay iiraan inaysan haysan hub nuclear laakiin dagaalkii dhacay bishii Juun 12keedii wuxuu dhaliyay in Israa'iil ay yaqiinsato awoodda gantaalada Iiraan oo markii hore la dhayalsan jiray ama lagu tilmaami jiray inaysan lahayn awood ay kaga gudbaan nidaamyada difaaca ee Mareykanka iyo Israa'iil ay farsameeyaan oo caalamka oo idin laga dhigay inay yihiin gantaalo aysan ka gudbi karin gantaalada kale laakiin Iiraaniyiintu xirfad cajiib ah ay isticmaaleen waxayna isugu geeyeen maskaxdoodii aqligoodii aqoontoodii dhaqaalahoodii sidii gantaaladan ay u samaysan lahaayeen haddaba aynu eegno warbixinta qaybteeda kale oo la xiriirta qiimaha gantaaladan iyo sida qasaaraha xagga jabka uu soo gaarayo Mareykanka iyo Israa'iil warbaahin ayaa waxay muujinayaan in 6 ilaa 7 gantaal oo nidaamyada difaaca loo adeegsanayo in lagu qabto ama looga hortago hal gantaal oo Iiraan ay soo rido qiimaha gantaalada Iiraan ayaa lagu qiyaasaa tusaale gantaalka Shahab 3 qiyaastii waa 1 ilaa 2 milyan oo dollar gantaalka Imaad ama Khadir 2 milyan ilaa 3 milyan oo dollar ayuu ku fadhiyaa gantaalka Fatah 110 qiyaastii waa 500 oo kun ilaa 1 milyan oo dollar halka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan ay adeegsataa iyo kuwa kale ee ay adeegsadaan kooxaha ay taageerto qiimahoodu ay ku fadhiyaan 20,000 ilaa 50,000 oo dollar intaan u gudbin nidaamyada kale ee difaaca Mareykanka iyo Israa'iil iyo qiimahooda waxyaabaha dagaalkan hadda socda maalintii toddobaad lagu arkay waxa kamid ah burburinta xarunta raadaarada ee ugu weyneyd bariga dhexe oo Mareykanka oo ku lahaa waddanka Qatar xaruntaas waxaa la qiyaasaa qiimaheedu inuu ku fadhiyay ilaa 1 bilyan oo dollar khubarada arrimaha militariga waxay leeyihiin waxaa suurtagal ah 1 milyan in ka yar in lagu burburiyo xaruntaasi amaba ka soo qaad dhowr diyaaradood oo diyaaradaha droniska ah oo midiiba ay ku fadhido 20 ilaa 50 kun waa lacag ka yar 300 kun haddii loo adeegsaday xaruntaasi burburinteeda diyaaradaha droniska haddii loo adeegsado gantaalna waxaa suurtagal ah 1 milyan in ka yar inay ku baxday oo lagu burburiyay nidaam raadaar oo 5,000 oo kilomitir daboolayay qiimihiisuna ka badnaa 1 bilyan oo dollar haddaba maxaa laga yaqaan qiimaha gantaalada difaaca hawada ee Mareykanka iyo Israa'iil gantaalada difaaca ee xulafadan sida gantaalka Arrow 3 waxaa lagu qiyaasaa qiimihiisii halkii xabo 3 ilaa 5 milyan oo dollar la soco waxaa suurtagal ah in looga hortagayo diyaarad drone ah oo qiimaheedu uu yahay 20,000 ilaa 50,000 gantaalada kale ee la yiraahdo Arrow 2 qiimahoodu waa 2 milyan ilaa 3 milyan oo dollar gantaalka David Sling waa 1 milyan ilaa 2 milyan oo dollar waxa iyaguna jira gantaalada loo yaqaan SM3 ee dhanka badda oo maraakiibtu ay adeegsadaan oo looga hortago gantaalada kale qiimahoodu waa 15 milyan ilaa 30 milyan oo dollar halkii xabo gantaalada la yiraahdo THAAD ee Mareykanka uu farsameeyo qiimahoodu waa 12 milyan ilaa 15 milyan oo dollar gantaalka Patriot BAC3 qiyaastii waxaa lagu qiyaasaa halkii xabo 4 milyan ilaa 6 milyan oo dollar marka 6 ilaa 7 gantaal loo adeegsado hal gantaal oo Iiraan ay soo saarto oo qiimihiisu uusan ka badnayn 2 milyan oo dollar xulafada waxa uga baxaya halkaas weerar 18 milyan ilaa 100 milyan oo dollarka Mareykanka si looga hortago halkaas gantaal waxa la sheegaa Iiraan in la hadda inay soo riday ilaa 500 oo gantaal taasi waxay keenaysaa in 10 bilyan oo dollar ay ku baxday ilaa hadda dagaal ka socda arintaas ayaa lagu macnaynayaa inay tahay saameynta dagaalkan waana sababta loo sheegayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu door bidayo dagaalkan in degdeg uu ku soo idlaado haddaba arintan ma noqon kartaa mid go'aaminaysa dagaalka tii ay u dheertahay in Mareykanka iyo Israa'iil ay ka cabanayaan inay sii yaraanayaan nidaamyada difaaca wadamada khaliijka qaarkood sida Qatar iyo Kuwait ayaa waxay sheegayaan
inay ku sii yaraanayaan nidaamyada difaaca waxaana jirta dhaliil ka imaanaysa wadamada khaliijka oo balaayiin haddii aysan ahayn trillion dollars ku bixin jiray difaaca maraykanka inay leeyihiin maraykanku waana dayacay oo israa'iil ayuu xoogga saaraya in la difaaco waana sababta keentay in imaaraadka carabta qatar baxrayn kuwait si xun duqayn ay uga socoto waa tahay warbixintaas intaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa aad baad ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa